بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta waxaan ka hadlaynaa naming and drawing of branching of alkene and alkyne waxaan ka soo hadalnay qaybihii hore alkene qaabka loo sawiro qaabka loo magacaabo sidoo kale alkene iyo alkyne iyo alkyl xataa maanta waxaan fiirinaynaa wax loo yaqaano branching alkene marka laga hadlayo branching alkene iyo alkyne dhamaantooda waxaa muhiim ah rules dhowr rules ayaa muhiim ah ruleskaas inaad raacdo marka aad sameynaysid naming ama marka aad sameynaysid drawing haddaan ku horumarno namingka inta badan waxaa laga rabaa inaad ogaato inta badan dhowr qaabood ay ugu imaadaa name in lagu dhaho ama draw lagu dhaho waa arki kartaa su'aal ahaan marka laga hadlayo imtixaanka sidoo kale waxaa arki kartaa inuu goobogelin ku imaado marka goobogelin hadii ku imaado waa inaad ka soo shaqeysaa marka ka shaqeysid kadib aad magacaado waxaa laga rabaa rule ugu horeeya waa inaad aqoonsataa waxa loo yaqaano parent straight chain iyo waxa loo yaqaano branching chain inta badan straight chain marka laga hadlayo inta badan horizontal u badan yahay marka qaar laakiin waa inaad ogaataa in horizontal ama straight chain ka qaabka uu yahay muxuu yahay ama parent chain tusaale ahaan hadda anaga straight chain dheer aan haysanaa 1 2 3 4 5 6 7 8 okay 8 waa naqaanaa waa octa maadaama single bound oo alkene aan ku jirno waa octane indana branch yaalo oo ah wax loo yaqaano methyl waxaan haystaa marka koowaad wax loo yaqaano methyl oo side chain ah labana waxaan haystaa parent chain waa side chain parent chain oo ah octane qaybta ugu horeyso laga rabo waa parent chain number 2 waxaa muhiim ah in la numbereeyo numbering la sameeyo aad numberaysid marka aad numbereynaysidna waxaa muhiim ah tusaale ahaan branchiga meesha uu ku yaalo lowest number tirada ugu yar meesha uu qaadan karo tusaale ahaan hadda inta ka soo tiriyo numberka inta ka soo bilaabo 1 2 3 4 5 6 branchiga wuxuu ku dhagan yahay number 6 7 8 noqonay tusaale ahaan ama dhinacana ka numberay 1 2 3 4 5 6 7 8 marka dhinacan ka soo numberay waxay noqonaysaa 1 2 3 4 5 6 7 8 labada ihtimaal markaan fiirino tusaale ahaan branching chain-ka meesha uu ku dhagan yahay marna number 3 uu haystaa marka saan u tiriyo from left to right markaan from right to left u tiriyo wuxuu haystaa number 6 marka yaa yar waxa yar number 3 ayaa marka darteed waxaan u numbereynaynaa marka waxaan ka bilaabaynaa 1 2 3 4 waa qaybta waxaan qaadanaynaa marka from left to right okay waa numbereynay parent chain-ki side chain-ki waa naqaanay sidaa darteed waxa inaan muujinaan laga rabaa aan siino tirada uu wato side chain-ka uu wato waa inaan bixinaa muxuu wataa 3 sidaa darteed 3 ayaan ka hormarinaynaa marka waxaa muhiim ah tira markay ay la kulanto xaraf ay la kulanto ama magac parent chain ama side chain hala ahaato waxa laga rabaa inaad raacsiiso waxa loo yaqaano hyphen hakad inaad raacsiiso tiro iyo xaraf haday xigsan hakad u dhaxaysan laba tiro haday dhaxaysan waxa u dhaxaysiinay comma ay u dhaxaysiinaysa marka saa darteeda waxaan haystaa marka waxa loo yaqaano tirada uu wato side chain-ka waa 3 saa darteeda marka waxaan sameeynaa marka magacaabida marka waxaan horumarinaa marka side chain-ka horumarinaa kadibna parent chain-ka horumarinaa aan ku xijinaa marka laba xaraf wax isbixiis ma u dhaxeeyo mar walba laba xaraf haday kulmaan wax isbixiis ma u dhaxeeyo okay maxaan leenahay marka 3 tiro iyo xaraf maxaa u dhaxeeyo marka hakada u dhaxeeyo hyphen okay 3 methyl okay 3 methyl kadib maxaa ku xiga marka aanu space bixaynin waxaan sameeynaa marka parent chain-ka ku xijinaa marka 3 methyl octane okay macnaha 3 methyl oo ku dhagan kaarboonka saddexaad parent chain-kana waxa waaye waa octane waaye saa darteed ayaan ku magacaabayba qaabkan loo yaqaano qaybta koowaad number 2 imaaw number 2 procedure-kii aan maraynaa oo kale oo sidii oo kale waaye maxaan sameynaynaa waa number gareynaynaa number 2 markaan number gareyno kadib waxaan sameynaynaa waxaan aqoonsanaynaa side chain-ka aqoonsanaynaa labada side chain aqoonsan iyo parent chain-ka aqoonsanaynaa okay this is side chain, this is another side chain, this is parent chain, saas u dheer yahay
okay ay cygen ka koowaad waa methyl cygen ka labaadna waa ethyl laba cygen way sabaran jing anterior go 2 3 4 5 6 7 8 ayadana waa octane sidoo kale octane okay waxa laga rabaa marka dhinaca u nambareynaya marka su'aalahan 1 2 3 3 oo baranjiga koowaad ku dhagan yahay intaan qaadana 1 2 3 4 marka waxa muhiim ah dhinacan ka nambareeyo marka nambarka ugu yar tirada ugu yar uu qaadan karo 3 4 5 6 7 8 saadarta methyl waxay ku dhagan tahay kaarboonka saddexaad ethyl waxay ku dhagan tahay kaarboonka shanaad meeshan waxa muhiim ah rule kale oo muhiim ah hadii ay jiraan laba cygen ay jiraan waxa laga rabaa inaad u nambareysid according alphabetical order saadarteeda marka meth iyo eth xaraf ahaan waxa soo horay eth waxaan soo hormarinaa eth kadibna waxaan sheegaa meth kadibna waxaan sheegaa marka parentage maxay noqonaysaa marka waxaan dhahaa marka 5 marba tiro iyo xaraf marka ay kulmaan maxaan u dhaxaysiinaa hakad 5 ethyl okay waxaan sameeynaa hadana tiraan soo wadaa kan labaad 3 methyl okay kadibna octane ayadoo aan space aan bixin this waa qaabka kale loo magacaabi kara marka waa muhiim inaad saas u taqaanid u sameyn kartid ko hel cygen iyo parentage numberay marka numberaysid kadib mid walba numberka uu wato c marka siisid kadib magacaaw marka isku geyn marka hadii aad tiro iyo xaraf kala siinayso waxa u dhaxaysa hakad hadii laba xaraf isku xigayaan wax space ah ma jiraya marka okay waa intaas yaa hormarna cygen ka hormarna hadii laba cygen jiraan alphabetical order oo sameeyna hadii isku mid yihiinna waxa imaan doonta qaybta kale aan ku arki doonaa that's all qodobka saddexaad example kan kale 1 2 3 okay meesha laba cygen oo similar ayaalo maxay yihiin waa midka hore waa propyl midka labaadna waa propyl de ku dhagan yihiin 1 2 3 dhinac laba dhinac isku mid waa marka waxay ku dhagan yihiin carbon 3 ku dhagan yihiin okay carbon 3 ku dhagan yes maxaa sameeynaa marka labadaba carbon 3 waaye meeshaan marka waxa la leeyahay marka parentage kan maxaa waaye 1 2 3 4 5 waa benta waaye waa bentane waaye saadarteeda marka maxaa sameeynaa marka markaan magacaabayo okay bentane oo parentage ka iyo laba xabo oo propyl ah saadarteeda marka laga hadlayo meeshaani waxa la leeyahay hadii tirada ay soo noqoto cygen-ka uu soo noqdo lama soo celcelinayo xagga qoraalka maxaa la sameeynaa xuruufta waxa la isticmaalaa marka di tri tetra iyo wixii la mid ah an etc di oo laba laga wado tri saddex ah tetra groupkaas la isticmaalo maadaama laba xab isku mid aan haysano maxaan sameynaynaa marka waxaan sameynaynaa propyl ma soo celinayo waxaan sameeynaa meesha ay ku dhagan tahay aan tilmaamo marka carbonka ku dhagan tahay 3 okay laba xaraf maxaan dhahnay waxa u dhaxaysiisaa comma 3 haye waxaan rabaa inaan qoro propyl hadii xaraf aan kulmsiinayo maxaan sameeynaa hyphen propyl okay parentage toos ugu dhaji maxaa waaye waa bentane this is magacaabida qaabka ugu fudud oo ah oo ardayga qaabka ku imaan karta saddexda qaab mar ayadoo hal cygen wadata ayadoo cygenis badan wadato laakiin kala duwan alphabetical order loo hagaajinayo ayadoo xuruuf isku mid ah wadata oo ah maxaa la lahaa cygenis isku mid ah wadato la isticmaalayo marka cafwan meeshan waxaan ka tagay 3,3 di maadaama laba xab yihiin di propyl di muhiim waa marka ereyga arabna marka maxaa waaye laba xab marka maadaama ay yihiin di propyl bentane that's all marka qaybta ugu horeysa marka qaabka loo magacaabayo naming of parentage saadarteeda marka qaar waxa arki kartaa marka in lagu qoro marka oo la sameeyo marka waxa la sameeynaa marka naming of drawing of parentage name ka lagu siinaa waxa laga rabaa marka inaad sameysid wax loo yaqaano aad keentid marka drawga aad sameysid okay meesha waxaan qoran marka 2 ethyl hexane sideen yeelayna marka 2 ethyl hexane ayaa leedahay waxa laga rabaa la sawirkeeda sameey ama sawirkii u jeeda meesha midkee ah seen ku ogaana marka okay
dhowr waxaan maraynaa iyada stages aan maraynaa oo stageska hadda la mid ah number hore waxaan sameynaa kow kaarboonada sameysnaa parentage horta kala aqoonsan meesha inaa kala aqoonsatid muhiim waay this is waa the parentage this waa side chain tirada meesha ku qoranna waa meesha uu ku dhagan yahay side chain ka numberka kaarboonka uu ku dhagan yahay waa marka saas u taqaanid sababta halkaan ku soo marnay marka saas u taqaanid way fududahay marka inaad sawirtid okay waxaan ka bilaabaa number 1 parentage chain ayaa sameysnaa parentage chain marka waxaa hexa waay hexa meeqa waay waa 6 carbon isaan sameysana kow labo saddex afar shan lix carbon waa haystaa yes okay 6 carbon waxaa leeyahay lixda carbon waa hexane saa darteeda carbonka labaad marka aan drawing sameeyo dhinaca aan ka sameeysan karo marka way banaan dhinaca ka dhigi kara dhinaca ka dhigi kara okay carbonka labaad this is carbon labaad dhinaca fiican marka carbonka labaad yaa ku dhagan C ethyl C5 C2H5 waa loo qori karaa ama waxaad dhihi kartaa CH2 CH3 waa same marna waa condensing waa molecular formula okay this is haye marka waxa sameeynaa kaarboonada u dhameystir marka maxaan u dhameystiraa hydrogenadooda kaarboonkan hal gacan bis oo haystaa maxaa ka dhiman saddex gacan kaarboonkan hal iyo hal oo haystaa iyo hal kor ah maxaa ka dhiman hal hydrogen hal gacan gacan walba ka dhiman waxaan ku dhameystiraa marka ay kaarboonkan wuxuu haystaa hal gacan oo haystaa iyo hal gacan dhinacana laba ka dhiman wixii dhexda ku jira mar walba waxa ka dhiman labo midka geeska jirana waxa ka dhiman maadaama alkane ay yihiin waxa ka dhiman wax loo yaqaano saddex this is waa sawir marka maxay tahay marka 2 ethyl kow labo saddex afar shan lix okay ina number waa muhiim marka 1 2 3 4 5 6 ileen maxaan dhahayaa kaarboonka labaad waxa ku dhagan ethyl maxayna tahay balance jingan wuxuu yahay waa hexane qaabka koowaad qaabka labaad this is waa laba qayb labada maxay yihiin number 1 side chain waa kan iyo meesha ku dhagan yahay kana side chain kale waa meesha ku dhagan yahay this is in the parent chain okay waxa ka bilaabaa marka kow inaan numbereeyo parent chain-ka markaan numbereynayo meeqa waa heptane waa 7 1 2 3 4 5 6 7 waa 7 haye 7 waa numbereeyay tusaale ahaan 7 waxa la leeyahay number C 1 2 3 4 5 6 7 yes waa numbereystay haye kaarboonka afraad waxa ku dhajisaa maxaa ku dhajinaa kaarboonka afraad bentane bent meeqa waaye waa muhiim ereyada inaad taqaan hore u sheegay marka bent waa 5 kaarboonka afraad bentyl ku dhaji bentyl oo alkyl ah waa 5 times 2 waa 10 plus 1 11 this is bentyl okay maxaa soo haray kaarboonka labaad maxaa ku dhagan waxa loo yaqaano propyl prob waa 3 C3 3 times 2 6 plus 1 7 this is waa samee marka ay hydrogen u dhameystir marka kaarboonka in walba hydrogen ka dhiman kan koowaad muxuu haystaa marka wuxuu haystaa hal saddex ka dhiman kan kale hal uu haystaa hal laba kaarboon oo dhaxda ku haystaa halna kor ku haystaa hal ka dhiman this is kan hal bis uu haystaa laba uu haystaa dhahay laba ka dhiman laba kaarboon oo haystaa kan laba uu haystaa iyo kor hal xabo hal ka dhiman kan wuxuu haystaa hal iyo hal laba ka dhiman kan hal iyo hal uu haystaa laba ka dhiman this is kan hal xabo bis uu haystaa saddex ka dhiman this is waa magaca marka waxa lahaa meeshan muhiim waaye waa for loo soo hormariyay alphabetical order kii la fiirinayo macnaha alphabetical order ka la raadinayo alphabetical maxaa waa bent iyo prob ya horeeya waxa horeysa wax loo yaqaano bent sadarteeda la soo hormariyay laakiin qoraalka waa sida okay numberka ugu dambeeya 2,3 dimethyl hexane okay 2,3 kaarboonka labaad iyo kaarboonka saddexaad maxaa ku dhagan di labo oo maxaa ku dhagan methyl ku dhagan inaad soo micnayn karto muhiim waay iyo balance chain-kan muxuu yahay hexane waay okay maxaa sameynaa balance chain-ka 6 1 2 3 4 5 6 okay maxaa la kaarboonka koowaad iyo kaarboonka iyo lambareed dhinaca iyo lambareed 2 3 4 5 6 yes haye kaarboonka labaad maxaa ku dhagan methyl
kaarboonka saddexaadna maxaa ku dhagan methyl kale. That's all. kadibna hydrogenada ku dhameystir maxaa sameynaysaa marka haye CH3 kana laba haysta dhaxdu ku jira haye CH2 CH3 xalena marka hadda laba meel hal meel ma ku wada dhigna laba meel ku kala duwan ay kala diiwa sheega marka labada meel maxaa waaye waa 2 ku dhagan yahay kana 3 ku dhagan yahay labadii waa tilmaamay marka maxaa lahaa marka waa 2 comma laba xaraf markay xidhan comma haye hyphen dimethyl hexane marka su'aashay kugu imaanaysaa marka su'aasha waxay kugu imaanaysaa su'aasha waxa la qoraa tusaalahan waxa la qoraa this is algu qoraa waxa lagu leeyahay 2 comma 3 hyphen dimethyl hexane waxa laga rabaa which structure-keeda leedahay structure-keeda kee waay marka waxaad rabaa inaad ka soo shaqeyso banaanka ugu soo shaqeysid marka ka soo shaqeysid kadib structure-ka saxda ah haysatid marka haysatid aad taqaanidba hadduu meesha ku jiro waa ka hadduusan ku jirin xataa hoosna ku calaamadaysto marka waa qaybta ugu muhiimsan marka waxa waaye waa qaybta waxa ugu ka baxay oo aan tilmaamay waa naming of branching alkane iyo drawing of branching alkane waxaan noo dhiman marka inaan sameeyno labada qayb kale oo ah alkene iyo alkyne hal example aan ka qaadanayna labada qaybood sidoo kale waxaan fiirinaynaa marka alkene aragnay alkene iyo alkyne hadaan alkene ka hormaro alkene ruleka alkene ku soo magacaawday ayuu la mid yahay maxaa waaye waa in staging ka hesha oo aqoonsata staging ka aqoonsata inaad numberaysa meeno numbering marka numbering meeshan waxa la nearest branch oo aha oo numberka possible uu qaadanayo hada laakiin numbering waxa waaye meesha uu ku jiro double bounding meesha uu ku jiro double bounding inaad ka numberaysid ayaa laga rabaa marka u dhow nearest side u dhow yahay numberka ugu muhiim oo qaadanayo marka double bounding meeshaas ayaa ka numbereynay taasaan ka bilaabaynaa marka salaam marka dhinaca marka ka soo fiiriyo double bounding dhinaca ku jira tira dheer u qaadana dhinacana dhow marka 1 2 3 4 5 6 7 yes inta kala ruleska kala same oo kala mid yahay marka okay waa number A helmet this is maxaa waa CH3 waxa waa ethyl waa methyl afwan waa methyl okay CH3 kala maxaa waa methyl labo methyl yes todobo meeqa waa heptane waa heptane oo ii akhri waa double bond ku jiro yes waa intaas waa haystaa waxa ma aqoonsaday cygeneiska waxa aqoonsaday parentogen isu geyntii marka numberka uu wato C marka numberka mid walba uu wato haye parentogenka carbonka double bond uu ku dhagan yahay waa carbon labo 2 comma hyphen yes haye cygenka marka laga hadlaayana maxay wataa labadoodaba 5 that's right okay isku geey marka waxaan leeyahay 5,5 hyphen ay laba markay soo noqoto waxa la sameeynaa ma la wada qoray may waxa la imaanaa ereyga di methyl okay raacsi marka parentogen haye xaraf iyo haday kulmaan tiro waxa u dhaxaysiinaa hyphen 2 hyphen heptane meesha alkane waxa loogu duwan yahay waa in la muujiyaa meesha uu ku jiro double bounding uu ku jiro inta kala same waa meesha double bounding ku jiro marka numbereynta la sameeynaayana waxa ka fiirinaysa marka meesha isku gaada marka meesha waxa ka numbereynaysa marka waxa ka numbereynaysa qaybta oo ah double bounding ugu dhow yahay marka side-ka ugu dhow yahay su'aal la mid ah marka oo ah maadaama naming and draw in la istawiro marka 4 methyl 2 heptane waa iska fududahay maxaan sameeynaa ko waxaan ka bilaabaa parentogen maxaan sameeysanaa marka hepta waa 7 2 3 4 5 6 7 yes waxa hydrogen masina hydrogen-ta iyo dambaysa mar walba okay double bonding waxa ugu jira carbon kala dhinaca waan ka dhigi karaa dhinaca ka dhig this ay double bonding waa qortay haye 1 2 3 4 5 6 7 one number ay markaa okay maxaan sameeynaa marka waxaan ku dhajinaa carbonka afraad ayaa waxaan ku dhajinaa methyl carbonka afraad waa kan methyl ku dhaji methyl say u qormay CH3 waay haye maxaan sameeynaa marka waxaan sameeynaa waa dhameystir hydrogenada dhameystir marka carbonka hal hydrogen uu wataa waxa ka dhiman hal carbon oo hal gacan uu wataa andhay afwan waxa ku dhagay marka 3 hydrogen carbonka laba intuu ku haystaa hal intuu ku haystaa maxaa ka dhiman hal carbonka laba intuu ku haystaa intuu laba hal ku haystaa hal okay kan hal intuu ku haystaa hal kor ku haystaa hal ka dhiman asigana
saasa u samaynaysaa marka ay kan maxaa ka dhiman labo haystaa laba ka dhiman kana labo haystaa maxaa ka dhiman labo labada maxaa ka wada labada carbon hore iyo carbon dambe ay kan hal carbon ku dhagan yahay maxaa ka wada that's all saadada maxaa marka waxay noqonaysaa marka 4 oo methyl ku dhagan double bondigan wuxuu inoo yeelaa 2 barnjin kana waa heptene waay that's waa qaybta koowaad oo ah markaan magacaabayna alkene hadhow qaabkaas uu su'aasha kugu imaanay marka imma ka shaqay ha lagu dhaho ama goobageli ha lagu dhaho waa same ina kale imaaw oo ah waxa loo yaqaan naming of branch alkyne alkyne wuxuu kaga dumiyaa groups kale waa kan oo la mid yahay wax kale ma kaga duwano bas meesha waxa yaala triple bond hadii alkene afahantay alkyne waa fahantay waa same waa isku mid waa marka maxaa sameeyay ko number ku hormar marka ay nacuu dhow yaa marka triple bond gal aanu yaala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay 9 waxa waaye no 9 waaye carbon ku jira triple bond carbon 3 okay branchiga maxaa waaye branchiga waa ethyl carbon ku dhagan yahay carbon 7 okay isku geey marka maxaa sameeynaa marka ayaa hormarina marka side chain-ka hormaray side chain-ka muxuu noqonaa marka 7 hyphen ethyl okay هذا ترى صوت hyphen dan 3 hyphen no 9 no 9 ama no 9 maxaa sameeyay marka no 9 waxay tilmaamay yn kaas waxay tilmaamay alkyne inay tahay 3 dan waxa triple bonding meeshu yaalo ethyl ka waa side chain waay carbon ku dhagan yahay waa carbon 7 waay that's all ayadoo la sawirayo marka sawiridi this is kan amal laga rabaa hay maxay qoran 2 propyl 4 decane okay decane maxaa waay waa 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yes aye maxaa sameeynaa marka waxaan sameeynaa waxaan dhamaystiraa horta ko triple bonding xagoo ku jira carbonka afraad dhinacan aan ka nambarey 5 6 7 8 9 10 yes decane haye to ku jira marka carbonka afraad 1 2 3 4 waa ka triple bond meeshan muhiim ah hydrogen da qorta dhoot mutatirey hadana ma markaan ay muhiim u tahay carbon qaar hydrogen ma qaadan kan maxaa ah gees u yaala ay kan wax double bond ma joo 2 haye kan saddex inta ku haysa hal in wax ma u baahna kan saddex inta ku hal wax ma u baahna haye 2 okay yaan hilmaamin marka meeshan waxaan hilmaamay carbonka uu ku dhagan yahay branching-ka carbonka branching-ka ku dhagan yahay yes maxay tahay marka waa carbon 2 maxaan sameeynaa marka maxaan ku dhajinaynaa marka C3H7 aye waa sameeyay aye maxaa u soo haray marka hal dhinacan uu ku qaatay halna inta ku qaatay halna kor hal hydrogen meesha labaan ka dhigna hal ay noqonaysaa marka that's right 2 propyl 4 decane dhameystir marka CH3 si fiican u fiiri marka ko maxaan sameeyay carbonadii aan samaystay waxaan qoray triple bonding meeshu yaalaan qoray next hydrogen bilaaban waxa sameynaysaa side chain-ka calaamadee carbonku ku dhagan yahay carbon 2 kadib hydrogenada marka carbon walba uu leeyahay u dhameystir this marka waa qaabka ugu muhiimsan oo loo magacaabo ama loo sawiro nooc loo yaqaano branching alkane ama alkene ama alkyne